يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصت الكون والملائك حفت مجلسا قد أضله الرحمن يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصت الكون والملائك حفت مجلسا قد أضله الرحمن حلقة تحتسي البهاء وتسقي مسجدا تنتشي به الجدران يا أبي كلما سرى همس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد weli waxaan ku jirnaa suurat ruum waxaa noogu soo dambeysay ilaahay subxaana wa tacaala oo mathal cajiib leh oo aad iyo aad u qiimo badan naga tusay nafteena in shirkiga ilaahay laga hufa subxaana wa tacaala. waxaan nafteena u ogolaan weynay in ilaahay loo qaado ma aha subxaana wa tacaala. addoommada idinka aad leedihiin buu yidhi ilaahay, ma jeclidiin inay wax idinla maamulaan, ma jeclidiin qasnadaada inuu maamulo, ma jeclid xaaskaaga inuu kula maamulo. say ku suuro gashay ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa inaad wax ula wadaajisaan ood ka dhigtaan sidii ayagoo markaa maamulka la leh. xaaladda noocaasaana loo soo diiday. wejigaaga ku og baray rasuulka alla iyo qof kasta oo ay ka suuro gasha in lala hadlo diinka idinkoo xaniifiin ahoo ka soo leexanaya adyaan kasta oo baatil ah. taasi waa fidro ilaahay. rabbi wuxuu ku amaamudaa ee uu ku abuuray subxaana wa tacaala dadka oo dhan. ma jirta bedel la bedela khalqiga ilaahay. taasi waa diin qayim ah, laakiin dadka badankooda ma oga. idinkoo soo noqonaya ilaahay xaggiisa, rabbi ka cabsanaya, salaada hagaajiya, ha noqonina mushrikiin, ha noqonina min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyaca. ha noqonina kuwii buu yidhi ila subxaana wa tacaala kala go'go'ay, kala qaybsamay, diinkii ku kala go'go'ay, shiyac iyo firqo iyo qaybo kala noqday. xisbi walba waxa agtiisa ahaaday ayuu markaa ku farxaaye. taasaa noogu soo dambaysay waidaa massa annaasu durrun, waidaa hadii ama goortii massa uu taabto annaasu dadka durrun dhib, dacow rabbahum way tuugaan oo waxay tuugayaan rabbigood. dacow waxay tuugayaan oo ay aad iyo aad u baryayaan rabbahum rabbigood muniibiina xaal ayin kuwii noqonaya ilayhi ilaahay xaggiisa u soo noqonaya. uma intaa ka bacdi idaa adaaqahum haddii uu dhadhansiiyo uma intaa ka bacdi idaa adaaqahum haddii ilaahay xaggiisa uu ka dhadhansiiyo oo haddii uu dhadhansiiyo alla subxaana wa tacaala minhu xaggiisa raxmatan naxariis, idaa fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah birabbihim rabbigood ayay yushrikuuna u sharig yeelayaan. ilaahay ayay u sharig yeelayaan subxaana wa tacaala liyakfuruu. sababtuna waxay tahay inay kufriyaan darteed bimaa aataynaahum wixii aan siinay. fatamattacuu raaxaysta marka, fasawfa taclamuuna dib dambaad ka ogaan doontaan. waxa idinku dhaca iyo sida xaalku noqda gadaal dambaad ka ogaan doontaane raaxaysta buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. waxaana loo tilmaamayaa insaanka dabci xumida lagu yaqaano ilaa qofka iimaanka leh maahane. rabbi wuxuu tilmaamayaa insaanka haddii dur iyo dhib taabto, haddii ilaahay subxaana wa tacaala imtixaan uu ugu talagalo inuu taabto, haddii uu ugu talagalo inuu taabto dhib iyo waxyaabo kale inuu ilaahay tuugayo subxaana wa tacaala. waidaa massa alinsaanu
insaanka haddii uu taabto burrun dhibaato dacaw rabbahum wa idaa haddii ama goortii massa uu taabto annaasu dadka haddii uu taabto buu yidhi ilaahay burrun dhibaato iyo wax mashaakil ah dacaw way tuugayaan rabbahum rabbigood ayay tuugayaan muniibiina xaal ay yihiin kuwii noqonaya waayo oo ilayhi ilaahay xaggiisa u soo noqonaya uma intaa ka bacdi idaa adaaqahum hadduu dhadhansiiyo haddii la dhadhansiiyo oo ilaahay xaggiisa laga dhadhansiiyo uma intaa ka bacdi idaa adaaqahum haddii uu dhadhansiiyo alleh minhu xaggiisa raxmatan naxariis uu ka dhadhansiiyo idaa fariiq iyo koox oo minhum ayay ka mid ah birabbihim rabbigood ayay yushrikuuna wax la wadaajinayaan ilaahay ayay wax la wadaajinayaan oo ay cibaadada wax kale ugu darayaan subxaana wa tacaala rabbigood ayay shirki u samaynayaan ay cibaadada la wadaajinayaan oo waxyaabo ilaahay la mid ah ayay samaynayaan asnaam iyo waxyaabo noocaasoo kale ayay aadayaan laakiin dhibaato iyo xanuun iyo jiro iyo masaa'ib kale haddii la taabsiiyo oo insaanku uu taabto caawo dhan wuu qaylin rabbi buu u soo laaban ilaahay ayuu baryayaa subxaana wa tacaala intaa ka bacdi haddii ilaahay uu dhadhansiiyo xaggiisa naxariis oo dhibkii iyo burkii laga qaado idaa fariiqun waaba koox oo minhum ayay ka mid ah birabbihim rabbigood ayay yushrikuuna u shariig yeelayaan liyakfuruu xaaladaasna waxay tahay waa inay kufriyaan darteed bimaa aataynaahum wixii aanu siinay fatamattacuu ayagii baa lala hadlayaa haddana raaxaysta buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala haddiiba kufri laydinka celin la'yahay oo rabbigiin aad ku kufrinaysaan oo nimcadii laydiin siiyey meeshaad ilaahay ugu mahad celin lahaydeenba aad keenteen inaad rabbi subxaana wa tacaala ugu shariig yeeshaan idan sameeya inaad raaxaysataan horay ayaan u soo marnay in takfuruu fa ina allaaha haniyun cankum haddaad kufrisaan ilaahay wuu idinka kaaftoomaa hani buu xaggiina ka yahay uma baahna cibaadadiina waxay u siyaadinaysaayii ma jirto walaa yardaa licibaadihi alkufr addoommadiisase gaalnimo uga kaafirnimo ugama raali noqdo wa in tashkuruu yardahu lakum haddiise aad shukrisaan nimcadii alla idinsii aad ku shukrisaan xanuunka iyo durka idinqabta aad sabirtaan yardahu lakum raali buu idinka noqon walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa naf dembowdayna naf kale dembigeeda ma xambaarta buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala sidoo kale waan soo marnay insaanka haddii dur taabto dacaa rabbahu muniiban ilayhi intaa ka bacdi haddii inta laga qaado dhibkii loogu bedelo nicmatan minhu nasiya maa kaana yadcuu ilayhi min qabl waaba iloobayaa kii shalay qaylinayay ee xanuunkii ka cawanayay ee rabbigii u qaylinayay oo alla u caafi lahaa maba ahanba waa haddii nimco la siiyo wajacala lilaahi andaadan ilaahay buu andaad u samaynayaa liyudilla can sabiili qul tamattac bikufrika qaliilan in yar gaalnimadaada ku raaxaysa buu dhahay ilaahay fatamattacuu raaxaysta buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala fasawfa dib dambe ayaad taclamuuna u ogaan doontaan wixii aad samayseen ciqaabkiisa cirubximida ka imaanaysa dhibaatada ka imaan doonta dib dambaad ka ogaan doontaana waayahay raaxaysta waxaa loola jeedaa bacdama aad diideen inaad xaqiiqda aad la timaadaan wixii alla raali ka noqon lahaa iyo wixii ilaahay idinku jeclaan lahaana aad diideen nimco haddii laydin siina aad rabbi u shariig yeesheen dur iyo dhib hadduu idin taabtana aad qayliseen ood cawaadeen sababtuna ay tahay waxa aan idin siinayn nimcada iyo caafimaadkii wanaagga inaad ku dul kufrisaan oo meeshaad ku shukrin lahaydeen cibaado iyo diin alla aad ku raaci lahaydeen aad ku kufriseenoo macaasi iyo wax alla dida aad u raacdeen fatamattacuu idan raaxaysta waayahe fasawfa taclamuuna dib dambaad ka ogaan doontaane amase anzalnaa ma dejinay calayhim korkooda sulطaanan xujo miyaanu ku soo dejinay fahwa
kaasoo yatakallamu ka hadlaya bimaa kaanuu wixii ay ahaayeen bihi maagaa yushrikuuna kuwa la wadaajiya ilaahay cibaadada, kuwa u shariig yeela ay ahaayeen. xujo tilmaamaysoon ku soo dejinay miyaa jirta buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. war maxaa ku kalifay inay nimcada alle ku kufriyaan? maxaa ku kalifay inay ilaahay ugu shariig yeelaan? ma waxaa jira sultaan? ma waxaa jirta xujo? ma waxaa jirta baraahiin? ma waxaa jira kutub aan u soo dejinay oo u sheegaysoo ka hadlaysa inay shariig yeeli doonaan ama ay shariig yeeli karaan? taana ma jirto. am anzalnaa, ma waxaan dejinay buu yidhi ilaahay calayhim korkooda sultaanan, xujo miyaanu ku soo dejinay? xujo miyaan ku soo dejinay buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. waa ma jirto. fahwa kaasoo yatakallamu oo hadlaaya oo kuwa u hadlaaya ahoo amase ka hadlaaya bimaa kaanuu, bimaa shaygii kaanuu ay ahaayeen, bihi maagaa yushrikuuna kuwa ugu shariig yeela ilaahay subxaana wa tacaala. waxyaabahay ilaahay ugu shariig yeelayaan waa xujo u tilmaamaysa maa jirtaa? ayaduna ma jirto. macnaha xaaladaana wax sugan oo jirtaa markaa ma aha. waidaa adaqnaa, haddaanu dhadhansiino annaasa dadka raxmatan naxariis, farixuu way farxayaan bihaa, naxariistii bay ku farxayaan. wain tusibhum, hadday asiibto sayi'atun xumaan oo bimaa sababteeda ah qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahooda, idaa hum waaba ayagoo yaqnatuuna quusanaya buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. insaanka dabciga iyo dabeecadda xunaa weli laga hadla. midka ilaahay diinkiisa ku taagan ma aha. ka kale iimaanka leh waataan soo tilmaanay. nebigu yidhi cajaban liamri lmu'min, qofka mu'minka amarkiisa cajiib iyo yaab leh. amarkiisoo dhan waa khayr buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. axad wixiisoo dhan khayr noqdaa ma jira ilaa mu'minka maahane. haddii dhib asiibo oo xaalad darroo dhibaato asiibtana waa sabrayaa, khayr bay u noqonaysaa. haddii xaalad sarraa ahoo farxad badan ay asiibtana waa shukrina, markaasay khayr u noqotaa. idan ma jiro qof wixiisa oo dhan khayr noqdaa ilaa mu'minka maahane. qof haddii caafimaad la siiyey khayr u noqotay, haddii la jiri siiyey khayr u ah, haddii la faqriyey khayr u ah, haddii rakhay barwaaqo la geliyey khayr u ah. maba jira ilaa mu'minka maahane. tiibuu ilaahay tilmaamayaa waidaa haddii adaqnaa aan dhadhansiino annaasa dadka raxmatan, raxmad iyo naxariis, waa caafimaad, waa xoolo, waa cilmi, waa wax uun wanaag ah, farixuu biha way farxayaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wain tusibhum, haddiise ay asiibto sayi'atun xumaan, xumaanta asiibaysaa ma aha wuxuu rabbi ku dulmiyey, waa bimaa qadamad aydiihim, waxay gacmahoodu ku hormarsadeen. waa dembi ay galeen, waa diin allay ka fogaadeen, waa waxay ayagu gacmahoodu ku kasbadeen. wanaagga ilaahay qofka fadli dheeraadkiisuu ku siiyaa, amaa dhibaatada qofku lama saaro ilaa wuxuu gacantiisa ku kasbaday maahane. waayo ilaahay laa yadlimu nnaas, dadka ma dulmiyo. dhib kasta oo kugu dhaca waa waxaad gacmahaaga ku kasbatay, waa waxaad adiga shaqaysatay, waa wax adiga sabab u ah. waidaa adaqnaa, haddaanu dhadhansiino annaasa dadka raxmatan, farixuu biha way ku farxayaan buu yidhi ilaahay. way boodboodayaan, damashaad bay samaynayaan, invitation bay bixinayaan, xaflad bay bixinayaan, way ciyaarayaan, muusigay garaacanayaan. xaaladoodu waa sida. waa insaanka dabciga xun. wain tusibhum, haddiise ay asiibto sayi'atun xumaan oo bimaa qadamad, wixii ay hormarsatay xataa ah aydiihim gacmahooda, idaa hum yaqnatuuna waa kuwii quusanaya. nimco ilaahay oo dhan bay ka quusanayaan. rabbii ahaanani baa taala, rabbi waa inacay, ilaahay waa i duleeyey, ilaahay waa i iloobay, ilaah intuu iga bixiyey, ilaahay baryaan waa ima soo jeedo. waxyaabo fara badan oo noocaasoon wanaagsanayn rabbi in lagula khitaabo oo lagula hadlo yay la imaanayaan. nimco ma taabatay, kama seexan kartid caawa. wanaag ma heleen, farxadiisa lama joogi kartid. waa tamrax, waa farxad gudub ah, waa mid ilaahay midka uu diiday ah, waa midkii dadka gobolka mida laga waaniyey ee qur-aanku tilmaamay laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin. faraxu hadduu yahay farax qofku farxo asoo nimco alla muujinaya, asoo shukrigii muujinaya, nimcada alla sii u adeegsanaya khayrkii wanaaga, dhib kuma jiro. laakiin midka farxadee la diidayo waa midka tamraxa ah, waa midkaan soo marnay, waa nimanka ahlu naarka meesha lagu yiri
waxaad ahaydeen kuwa farxa iyo bima kuntum tamraxuun kuwa farxa ku xadgudba oo farxa wuxuu keeni jiray inay sameeyaan waxyaabo ilaahay diintiisa looga baxayo waxyaabo macaasi ah waxyaabo ilaahay aan raali ka ahayn waxyaabo shayaatiinta farxad gelinaya xaalad fara badan oo noocaas ah farxadii baad maqlaysaa maanta markaas hobalo walba iyo mtaqaana haliyad kasta iyo kasto cod baxsan baa meeshii la isugu keenaa markaas la damaashaada waa arooskiisii waa farxadiisii xaaladda noocaas wax wanaagsan ma aha hadii rabbi raxmad dhadansiiyo insaanka waa farxaya wa in tusibhum hadaysa asiibta sayi'atun xumaan oo bima waliba ah sababteeda qadamad aydiihim gacmahoodu ay u hormarsadeen oo ay samaysteen oo waxay ayagu galabsadeen idaahum yaqnatuuna markaasay quusanayaan laakiin mu'minka maxaa lagu yaqaan haday raxmad asiibtana waa farxaya laakiin rabbi buu ugu shukrin hadii sayi'a ay asiibto waliba og inuu gacmihiisu ku hormarsaday ma quusanayo rabbi ayuu hadan istighfar weydiisan allahu u soo laaban ilaahay buu subxaanahu wa ta'ala weydiisana wax allaala wixii khayr iyo wanaag uu ku gaari lahaa waxay la mid tahay wala nudiiqannahum min al'adaab al'adna duna al'adaab alakbar la'allahum yarji'un wadadhansiinayna cadaab yar intaan cadaabka weyn la gaarin inta waxaan ugu talagalnay inay soo rujuucaan inay rabbi u soo laabtaan inay tawbad la yimaadaan inay rabbigood u soo istighfar weydiistaan saasaan ugu talagalnay wa idaa adaqna hadaan dhadhansiino annaasa dadka raxmatan raxmad iyo naxariis farixuu biha naxariista bay ku farxayaan wa in tusibhum hadiise ay asiibto sayi'atun xumaan oo bima qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahooda idaahum waaba ayagoo yaqnatuuna quusanaya awalam yaraw miyaysan arkaynin anna allaha ilaahay yabsutu inuu yahay macbuudka fidiya risqiga u fidiya liman yashaa qofkii uu doono wayaqadiru ilaahay wuu ciriiriyaa qof halaala qofkuu doonana waa ku ciriiriyaa oo risqiga ilaahay baa qaybiya wallahu yabsutu wallahu ilaahay waa laabaa yaqbidu wa yabsut qofkuu doonana waa ku ciriiriyaa qofkuu doonana waa u furaa looma fiiriyo jacayl iyo nacayb ilaahay balse waa mixni imtixaan qolana ilaahay wuu ku ibtileeyaa faqriga qolana waxaa lagu ibtileeyaa barwaaqada waxaa lagu ibtileeyaa taajirnimada saa darteed ilaahay qof allaala qofkuu doono oo adoomadiisa ka mid ah waa u fidiyaa risqiga waa loo waasiciyaa meel kasta laga siiyaa ida risqi marka la leeyahay lacag kaligeed ma aha caafimaadku waa risqi awlaadu waa risqi maalku waa risqi waxyaabaha qof la siinay waa risqi awalam yaraw anna allaha arki maayaan miya ilaahay yabsutu inuu yahay allaha fidiya risqiga liman yashaa qofkii uu doono wayaqadiru waa ku ciriiriyaa ilaahay qofkuu doono inna fii daalika arintaana la aayaatin aayaad baa ku sugan liqawmin qoom bay ugu sugan yihiin qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaya qoom ilaahay aaminaya oo rumaynaya calaamaad iyo aayaad bayinaada ugu sugan saa darteed buu ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala risqigana inuu fidiyo cid allaala cidda uu doono uu ku ciriiriyo ilaahay cid allaala ciduu doono qof maanta haystaa laga qaadaa ku aan haysan baa la siiyaa kuwa la sii wada siiyaa dhammaan qofka faqriga loogu wada dhameeyaa say noqota ilaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay xaaladda inay tahay ayaam oo dadka lagu dhex wareejiyo وتلك الأيام نداولها بين الناس مالين قوش أضاء إسكالي مالين ولقاليه مالين عافماتك أضاله مالين قفك لا إسكالي مالين رزق أضاء لغوفدد مالين ذاتك لا لغو وريجينيا إذن إلهي يبسط الرزق لمن يشاء قفك أضانه وأفديا ويقدر إلهي وعريريا وكعريريا لمن يشاء إن في ذلك أرنت لآيات آيات باكجرة لقوم يؤمنون قوم رمينا يمرك أجرتا إلهي سائس كما يلي وعبر لغو أقونصده وأرين لغو فهمه وأجيدا ددكي شالي كرجرة إلهي خوص كينا مالين تضمبه ددكي خوص أهابا كرل كينا كي شالي حولها يهانتده هيستي إلا دورسن جري لو إيمانا يولو شحات تغاي يا مانت شحات تغاي أساقنا إلهي أقول تلقالي أرينتا آيات علامات لغو فهمه oo lagu aqoonsado awoodiisa iyo waxyaabo badan oo ilaahay aayaadkiisa ah yay ugu jirtaa laakiin liqawmin yu'minuuna qom rumaynaya buu yiri ila subhanahu wa ta'ala qom rumaysan oo raacaya
oo ku dhaqmaya oo fahmaya ilaahay awoodiisii aayaadkiisa ayay markaa ugu jirtaa. ee fa'aati sii dhal qurbaa qaraabada midka u saaxiibkaa xaqahu xaqiisa sii walmasaakiina walmiskiina miskiinkana xaqiisa sii wabna asabiili jidka ininkiisana ama ibni sabiilka waa musaafirkee asagana xaqiisa sii. daalika buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala kiinaas baa khayrun u khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yuriiduuna doonahayay wajha allaahi ilaahay wejigiisa wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu almuflixuuna waa kuwa markaa liibaanaya. aaway qaraabadii, aaway masaakiintii, aaway ibni sabiilkii, intaba xaq bay nagu leeyihiin. xaq cajiib badan bay nagu leeyihiin. qaraabada xaq bay kugu leeyihiin. adiga bax oo shaqayso ama dhoof oo lacag soo hel, qaraabo goys ha noqonin. taleefanada yaan la dansanin. wax allaala wax laydinkaga baahdeed awoodi kartaan ummadda u qabta. wax allaala waxaad u samayn kartaan xataa kelima tayib ah waa sadaqee dadka u isticmaala. qaraabadu xaq bay nagu leeyihiin. waxaa moobeelada iyo taleefanada laga badbadashto inta layska daayo in badan ha la ogaada waa qaraabe. waayo qaraabadu ilaa wuxuu ka dhigay dadka aad iyo aad in loo ilaaliyo oo nagala dardaarmay. mar allaala marka raximka la abuuray ama qaraabadu hoosguntiga allay ku dhegtay baa la yidhi, ayadoo cabaadaysa, ayadoo goysma ka cabsanaysa oo ay dhahday inta raxmaanka carshigiisay hoos tagtay, rabbiyow makaankan waa makaankan kaaga magangelaya goysmo. markaasuu ilaahay ku yiri ximiraali ma ku noqonaysaa inaan gooyo kii ku gooya xiriiriyana kan kii ku xiriiriya. ayada iyo hooyadeed islama hadlaan baad maqlaysaa. habaryarteed iyo iida la kala qabtaa oo la kala celiyaa. adeerkiisii asaga weji isku arkaan malaha. xaalada noocaasuu ilaahay diidaya subxaanahu wa tacaala. waxaa la tilmaamaya oo nala leeyahay qaraabada xaqooda siiya. maalinta qiyaamo marka la tago oo siraadka la gudbaayo, labada dacal ee siraadka ammaanada ee raximka la istaajiyaa ama qaraabada, labadooda kii dayacay way qabtaan wayna ku tuuraan naarta. kii labadooda hagaajiyana wuu samatabaxaa waana badbaadaa. yaa jecel in cimrigiisa la dheereeya buu dhahay nebiga, risqigiisana loo waasiciyo. labadaa qofkii jecel ha xiriiriya raximkiisa. xaaladaasaa wuxuu ku dardaarmay rasuulka arrin aad iyo aad markaa u weyn. marka qofka muslimka ah waxaa la leeyahay sii midka qaraabada u saaxiibkaa xaqiisa. idan xaq inuu kugu leeyahay yaa meesha laga fahmaa. meeshuu alla noogu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala fa'aati sii dhal qurbaa dhawaashaha midka u saaxiibka ah, qaraabada midka u saaxiibka ah xaqahu xaqiisa sii uu kugu leeyahay. wax allaala waxaad u kari kartood u awoodi karta u qabo. waxaadan u awoodi karin hadal fiican kula hadal. saa darteed baa ilaah tilmaamay qowlun macruuf, hadal fiican iyo maqfiro dhaafid ah yaa ka khayr badan sadaqo. adi iyo dhib markaa la raacsiiyey. kelimada tiibkee wanaagsan waa sadaqa buu dhahay nebiga laftigeeda. idan qaraabada xaqooda siiya. yaa soo haray walmiskiina, miskiinkana xaqiisa siiya. miskiin waa qof aan waxba haysanin ama wax haysta oo dhaqdhaqaaqa laakiin wixiisu ay ku filan yihiin. faqiir iyo miskiin marka waxay ka mid yihiin labadaba dadka ilaahay tilmaamay in sakaadka la siiyo sadaqada. sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala, inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin. idan faqiir iyo miskiin maxay ku kala duwan yihiin? faqiir waxaa la yidhahdaa qofaan waxba ka dhicin, waxuu haystaa ma laha, wuxuu cuna gurigiisa ma yaalo, waa faqiir. miskiin laakiin waa qof dhaqdhaqaaqaya, waxna haystaa laakiin wixiisaan ku filnayn. waata ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala safiinadii iyo doontii nebi muuse uu duleeliyey, nebi qadar uu duleeliyey oo alwaax uu ka fujiyey. muusena uu yidhi maxaa saas u yeeshay? waa dad lacag la-aan nagu soo qaaday. doontooday nagu soo qaadeen. ma u qasaday? ma fujisay? dhibkan maad gaarsiisay? xaaladaas ayuu tilmaamay. waata khadir markii dambe uu u fasiray muuse. waxyaabaha loogu fasiray waxaa ka mid ahaa ama asafiinatu fa kaanad limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr. waxaa iska lahaa masaakiin badda ka shaqaysata.
waxa laga fahmayaa inay ahaayeen koox dooni ku shaqaysato ay haysteen koox inay ahaayeen doon ay ku shaqaystaan bay lahaayeen laakiin kuma filna maskiinna waa lagu tilmaamay ama safiinatu fa kaanat limasaakiin masaakiin baa iska lahaa yacmaluuna fi lbaxri badday ka shaqaysan jireen doomaha waxaa jiray boqor daalim ah oo doontii ceeb aan lahayn wuu boobi jiray ayadoo dhan ama cashuur buu ka qaadi jiray faaradtu an naciibaha وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا دون كستو صالحات في عن وان عيب لهين بوب بو كقادي جيري اما ايضا دن بو قادن جيري وحان ربي بو يري دون تويلش المساكين تا وحكا لي كوشا قيستان ملها ايضا لفتيجيدا مكافيسو ان الواحد انتان كفوجيو بقرك انتو يمادو ايغو اما شقالو سو ديرسدو كدب اي اركان دونتنا عيبيسان تahay كدبنا لو دافو ولو بدبادينايي اذا المسكين كاسا ليرهدا فقير سوا إبر سيدفت بو رسولك حديث كويري ليس المسكين مسكين كدبتا معها مدكي تمر إلا تمر عليسو هل لغمت إلا لغمت مدكي عليسو لكن مسكين ومدك عفيف كي دورسان أن ددك ويديسان حدنا باهن أن لا فهميني إدركي سعد يهي مسكين كاسو كتل مامي كدور سدي توكسو لفتيجي سوا مسكين لكن مسكين كحقيق ذا أي دينتو أمانتي كاس معها وحا عليسا هل تمر إلا تمر الباب بوسو استاجا كعنتو تاجنا هل عنجرة للصينة هل تمر للصينة وبحيا متك تمر إلا تمر اللقمت إلا لقمي عليسو ما أهم بوردهاي مسكين كحقيق ذا أي دينتو أمانتي لكن مسكين كحقيق ذا كوايه مسكين كحقيق ذا وحو إلى نبي وكت المامي متك دورسان هدنا باهن هدنا أن لفهمين هدي ددكو فهمي لهاي ويكو صدقيسان لهاي وحبا لسين لها فقير كنا واسيدا أن صوت المانو وميدا وحبا كدعين wax tijaara ma geli karo wax ganacsiya ma geli karo adduunka kuma safri karo meel uu aadi karaa malaha sida ilaahay kitaabkiisu ku tilmaamay lil fuqara alladina uhsiru fi sabilillah jidka allay ku xabisan yihiin la yastati'una darban fil ardi ma awoodi karaan garaacid ee dhulka garaacaan يحسبهم الجاهل أغنياء جاهل كوحو أملا يدد تاجر ومن التعفف دور صنانت الدرتيد تعرفهم بسيماهم علامات كدت كو أقون صنيصا لا يسألون الناس إلحافا إلحاف أهم وقمع العليان دتك وباعيهي وقاجيسيهي يسري كله مايو قفك مسلم كمركا وحال الروائنو إن دير قرب نقضو قفكاسي أقادو حقي سنة مركاسيو فآتسي ذا القربة قرابة متك الصاحبك حقه حقي سسي والمسكين مسكين كنصي وابن السبيل مسافر كنصي مسافر كوا مسكين باليري حتى سلطان هالنقضة ودن كاغا ودن آنهين مركا جوكتو مسكين وحاتهاي مسكين وحاتهاي قف بباتيسان وحاتهاي قف متقانا مشاكل الصاحب ابن السبيل كا وحا ابن السبيل لو يري وضدو هبيلي مالين سارين هاي جدك وحو طليبا لوغا دغي وابن السبيل وجدك إننكيسا وعنوغ جدك waxa la yiri jidka canugii u dhalay oo kala laga dhigay bacdamo dhulku dul saaran yahay wabna sabiili ibn sabiilka nasiya xaqiisa dhalika kaasa khayrun u khayr badan lilladina kuwa yuriiduna doonaya wajha allah ilaahi wajigiisa waxyaabaha wajiga ilaahi lagu mutaysto oo lagu arkay sadaqadu kamid tahay qaraabo xiriirinta ay kamid tahay maskiinka wax la taro iyo musaafirka jid socodka ee imtixaan dhibaatadu ku dhacday ibn sabiilka ninka noocaas oo wanaag loo sameeyo xaqooda laga soo baxo waxay u khayr badan tahay lilladina yuriiduna kuwa raba oo doonaya wajha allah ilaahi wajigiisa wa ulaa'ika kuwa humul muflixuuna wa kuwa liibaanay هم أيجا المفلحون كوا جولستي ليباني إذا حالات وحين نوت الماميسا أيضنا حقوقاتك إن مركا لفوليو وحان حق قرابة مسكين ابن سبيل كاللية زكذا كم جفتين دين فوق هذا الزكذا وجوني أيضنا تنوى واحترك له ومركا حقه جونيهان ضدك الله صاري وما آتيتم وحي أب بحسان وح الله لا وحي أب سيسان أيو يري إلى سبحانه وتعالى وما آتيتم أو من ربا أو زيادة ليربو زيادات في أموال الناس دتك مال كوذا فلا يربو بضن ما يزياد ما عند الله إلهي أكتيسا وما كيس آتيتم أب بحسان سيسان أو من زكاة زكاة تريدون إذن كل الدنيا
wajha allahi ilaahay dartii fa ulaa'ika kuwa hum ayagu almudcifuuna waaye kuwaas ayaa ah kuwa loo laalaabo buu yidhi ila subxaana wa tacaala wixii ay sameeyeen kuwaasaa loo siyaadinayaa kuwaasaa loo laalaabayaa kuwaasuu ilaahay u kordhinaya subxaana wa tacaala waxaana loo tilmaamayaa ribada dhibaatada ay leedahay laba xaaladba waa suuragal wamaa aataytum min riban wax allaala wixii aad siisaan dad masaakiin ah ama dadka aan soo sheegnay oo min riban riba ah waxyaabo xoola ayaad siisay liyarbuwa fii amwaali nnaasi say ugu bataan dadka maalkooda ribadii caadiga inaadan ka dhigin oo aad ka dhigto waxaad dhiibtay oo aad bixisay adoo rabaa beri wax ka badan in laguu keeno taasi waa suuragal oo macno meesha ku jira wamaa aataytum wixii aad siiseen ama aad siisaan ood bixisaan oo min riban riba ah wax badsi ah siyaado ah oo ziyaado ah idinkoo ujeedadiinu ay tahay liyarbuwa fii amwaali nnaasi dadka maalkoodu inay ku bataan oo ay ku ziyaadaan dada markay wax bixinayaan ujeedadoodu waxay tahay waxay bixiyeen wax ka badan in loo keeno sadaquu dhiibay dhiibitaanka uu dhiibay ilaahay dartii kama aha amase way ka tahoo haddana wuxuu rabaa qarad iyo dan kale saa darteed baa wuxuu ku xisaabtamaa waxa loo keeni doono xaalad noocaas oo kale ah saa darteed baa dumarkaba ha u badnaadaanee mar allaala marka aroosyo jiro ama tacsiye ay jirto ama arrin kale ay jirto qof kasta wuxuu maanta qaado ee uu geeyo yuu ku xisaabtamaa beri in loo keeno asagana taasaa ilaahay diidaya subxaana wa tacaala horaan u soo marnay innamaa nutcimukum liwajhi illaahi waxaan idin quudinaynaa waa alla dartii waxaan idinkugu keenay waa weji ilaahay laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran jazaha waa in hadhow wax kale lagu keeno shukuurkana waa in lagu ammaano waa mahadsan tahay lagu dhaho labadaasba qofka ilaahay subxaana wa tacaala dartii wax u bixiya kaa waay midka jannada lagu abaalmariyo wajazaahum bimaa sabaruu jannatan wa xariiran janno iyo xariir buu ilaahay ku abaalmarina subxaana wa tacaala janno iyo xariir buu ilaahay isugu daraa saa darteed baa waxaana la leeyahay wax allaala waxaad siisaan maskiin ama qaraabo amase ibnu sabiil oo riba ah wax ziyaado ah idinkoo raba inay bataan ama ay ku ziyaadaan fii amwaali nnaasi dadka maalkooda falaa yarbuu cinda allaahi waa nasiibka qofka saas wax u bixiya baa la yidhi dembina looma qoro ajirna kuma helo way ujeedadiis waa in dadka dhexdeeda ay wax ugu bataanoo hadhow wax loo keeno waa laba mid inuu helo oo wixii ribaha ahaa ee loo badin lahaa dib loogu soo celiyo loo keeno waa nasiibkii hadduu helo hadduu waayana waa nasiibkiisu adduunkiina waa ku waayey laakiin ilaahay agtiisa wax kuma laha falaa yarbuu ma ziyaadayo wax ziyaadaya oo ku badanaya ma aha cinda allaahi ilaahay agtiisa wamaa aataytum wixiisa aad siiseen ama aad siisaan ood bixisaan oo min zakaatin zaka ah inaad rabtaan inaad isku tahirtaan turiiduuna xaal aad doonaysaan ood rabtaan wajha allaahi ilaahay wejigiisa fa ulaa'ika kuwa hum ayaga almudcifuuna kuwa loo laalaaba ah xasanaadka iyo wanaagga waata la tilmaamay qofka sika marka uu bixiyo ama sadaqo ilaahay wuxuu ku qabtaa marka hore gacantiisa midigta ah waa barbaariyaa waa koriyaa ilaa marka dambe ay noqoto sidii jabal oo kale buu dhahay nebiga sida xadkiin uu u koriyo ee darmaanka ama faraska ilmaha uu dhalo oo marka dambe u weynaado saasoo kale ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u barbaariyaa weliba xadiisku wuxuu ku sii daray cadla tamr ama timir wax la mid ah oo min kasb tiib ah kasab xalaal ah ka timid oo ilaahay dartii loola jeedo kaas waay wuxuu ilaahay barbalaalaabayo oo qofka mudaacaf looga dhigayo waay wax bixintu waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay ziyaadiye subxaana wa tacaala qur-aankii noogu imaan doontaa mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamahali xabbatin ambatat 7 sanaabila waxay la mid tahay kamahali xabbatin xabad oo kale ambatat 7 sanaabil 7 sabuulood bixisay sabuul kastana uu ku yaalo 100 xaba buu dhaa ilaa subxaana wa tacaala ilaahay cid allaala ciddii uu doonana waa uga sii badiyaa waa loo sii laalaabaa idan waxyaabahaasaa loo laalaabayo oo waxyaabaha ilaahay agtiisa khayrkii wanaagga looga gaaro waa waxa ilaahay dartii loo bixiyo oo waxaan manniga iyo adiga iyo dhibsheegashada aan lagu darin saa darteeda waxaa la rabaa qofku mar allaala markuu wax bixinayo manni kowdhe
adiku xiji waa qofka oo la dhibo arimooyinkaasoo dhan inuu sadaqaadkiisa ka ilaaliyo mar allaala markuu intaa sadaqaadkiisii ka ilaaliyo yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa darajo aad iyo aad u sarraysa wuxuu siinayaa khayr fara badan wuxuu siinayaa arimooyin aad iyo aad u fiican ilaa ilaahay mathal uu ka dhigay uu yidhi wa mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqaa'a mardaati illaahi dadka xoolahooda bixinaya una bixinaya inay raadiyaan oy helaan raadihasho ilaahi iyo wa tathbiitan min anfusihim waa ka mathali jannatin tusaale ayuu ilaahay ka dhigay dadka ilaahay dartii wax u bixinayo beer oo kala waaye beertii waxay ku taalaa birabwatin meel sarraysa beer walba beerta ay meel sare uga taalo way ka fiican tahay birabwatin inaan meelaha taaggaa roobku ku badan yahay asaabahaa waabilun waxaa ku da-ay buu yidhi ilaahay waabilka waa roob weyn roob aad iyo aad u weyn baa beertii kusoo da-ay fa aatat ukulahaa mirihii bay marka dhalisay ayadoo dicfayn ahoo labalaab ah meel kastoo hal xaba laga filaayay labay ka soo bixisay fa in lam yusibhaa waabilun xataa hadduusan ku da-in roob waabil ahoo weyn fatallun mid yar oo shuux ah yaa ku filan buu dha ilaah subxaana wa tacaala maba u baahnaba roob weyn mid fatal ahoo iska khafiif ah oo shuux ah kaasaa ku filanay ku baxaysaa wallahu bimaa tacmaluuna basiir qur-aankii markaa noogu imaanaysaa marka taana waxaa laga qaadanayaa qofkii wixii ilaahay dartii uu u bixiyo waa loo laalaabayaa allahu ilaahay الذي وإلهي خلقكم إذن أبوري ثم كبعد رزقكم إذن أرزقي ثم كبعد يميتكم وإذن دليا ومتك ألا إذن دليا ثم يحييكم كذبنا والله إذن صنوا لينا هل من شركائكم شركذين من مكمديهي يفعل فلكرة وصمينا من ذلكم كين حجيسا من شيء وحكا سمين كرا إلهي وإذن أبوري شركذا ما إذن أبوري كران إلهي وإذن أرزقي ما إذن أرزقي كران إلهي وإذن دليا ما إذن دلي كران إلهي وإذن نولين يا آخرة ما إذن نولين كران هل من شركائكم شركذين مكمديهم بوير إلى سبحانه وتعالى من يفعل متفالي كرا وصمين كرا وصمين يا أرنت أن صوت الماني حق هذا شيء متك صمين كرا مكجرا جوابت واميا malahan buu yiri waata ilaahay quraanka way noogu imaan doontaa suuradaha noo soo socda inma ta'buduna min dunillahi awthana waxaad alla sukadiisa caabudaysan waa sanamiyo wa takhluquna ifkan wa been abuuranaysaan innal ladina ta'buduna min dunillahi kuwaad caabudaysan alla sukadiisa la yamlikuna lakum rizqan rizqi ay idin hanan karaan ma jiro galaas bi idin siin karaan malahe fabtaghu inda allahi rizqa إلهي أكتس رزقك كالضوانطة واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون تاسو مركة إلهي تلماما يا وحان كسو هاري أصنامها أما سي إلهي أتكدقتين أما سي إذنك أت إلى حقيسة وشريك يشان مكمدي هاي انت إلهي قبت وحسا ميناي الله إلهي الذي إلهي ويخلقكم إذن أبوري ثم كبعد رزقكم إذن أرزقي ثم يميتكم وإذن دل يا إلهي ثم يحييكم ومتك إذن صنولينا هل من شركائكم إلهي الكينة أتشاقان إيسان وشركاء إلهي أغدكتان شركذيني من مكمديهي يفعل فرايا وصمينكرا من ذلكم كينا لصوشاقي من شيء ومجر سبحانه ونزهي إلى سبحانه وتعالى سبحانه نزهناتي سيي معنى نزهناشا أصغناتي إله وتعالى وكسر يا عما يشركون وحي أشرك يلايان وحي إلهي وحلو ذا جنيان أصنامتي وحيابها كلي يو إلهي ككر يا سبحانه وتعالى ظهر الفساد فساد أيا ظاهري في البر برقئي والبحر بضبا وانا بما كسرت وحي كسرتي أيدي الناس ددك قعمه ذا وحونا أغسو ظاهري ليذيقهم إنو ددنسي إلهي بعض الذي كي قيب كمذا عملوا أي عمل قبتين وحمان لعلهم يرجعون وحي مذين يدب أصولاتان فساد أي بدي إيا بحر كيبا كسو ظاهري برق مركل ده هو بنانك بحر كمركل ده هو بدا بدينا وحلا عنائيو ملايقي إيو كلون كيبا لقوايي أما يراضي وحي قيمها بدنا إلا هلايي ساسو فساد كي أصو ظاهري
barrigiina dhulgariir iyo nabaadkii iyo wixii fiicnaa iyo kulli baa laga waayay roobkii wuxuu soo bixinayay dhahara alfasaadu fasaadka waa suuragal insaan loola jeedo fil barri wal bahri qolaa waxay dheen barrigan waxaa loola jeedaa waa miyiga iyo meelaha baadiyaha ah baxarkana waxaa loola jeedaa waa meelaha magaalada ah say noqotaba ilaa wuxuu tilmaamayaa dhahara alfasaadu fasaad ayaa soo muuqday oo ka soo daahiray fil barri barriga waa bannaanka wal bahri iyo badara oo bimaa kasabad ah wixii ay kasabtay oo ay shaqaysteen bimaa sababteeda kasabad ay kasbatay aydi nnaasi dadka gacmahooda haddaan soo tilmaanay qofka wixii ku dhaca oo dhanba waa bimaa qadamad aydiihim bimaa kasabad aydi nnaasi dadka gacmahooda liyudiiqahum inuu dhadhansiiye ayuu ilaahay sidaa u yeelay bacda aladii dhammaan ma aha waa qayb ka mid ah kii ay camiluu shaqaysteen ay camal qabteen wixii ay sameeyeen ee xumaan ahaa qayb ka mid ah aawa qaybtii kale iyo wax ka sii badanba waxaa loogu dibdhigayaa aakhiro waata qur-aanku tilmaamay walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari cadaab yar baan dhadhansiinaynaa waa jiro waa dhibaatooyin waa masaa'ib waxyaabo qofka lagu sallido intaa inay soo laabtaan baan ugu talagalnay saasuu ilaahay yidhi sidoo kale waxaan soo marnay aayadaha qur-aankan ku soo marnay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha dadka uu ku rido ee masaa'ibtaa ay tahay waxay gacmahoodu kasbatay wayacfu can kafiir inta laga cafiyana ay markaa kasii badan tahay dahara alfasaadu fasaad ayaa kasoo muuqdo kasoo daahiray filbarri barriga dhexdiisii walbaxri badaba oo bimaa sababtii ah kasabad ay kasabtay aydi nnaasi dadka gacmahooda liyudiiqahum inuu dhadhansiiye ilaahay bacda aladii kii qayb ka mid ah camiluu ay camal qabteen in waxoogaa inta la kululeeyo kadibna lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo noqdaan inay ilaahay u soo laabtaan subxaanahu wa tacaala taasaa la arkaa xaaladaasay mudan yihiin taasaa suuragal ah intaasoo dhan idan waxaana loo tilmaamayaa in dadku wax allaala wixii markaa ku dhaca ay isla markii rujuucaan ilaah inay usoo laabtaan subxaanahu wa tacaala wa idaa massa haddii uu taabto annaasa dadka durun dhib iyo dhibaato dacaw rabbahum rabbigood ayay tuugayaan buu yidhi ilah subxaanahu wa tacaala way tuugayaan rabbahum rabbigood ayay tuugayaan muniibiina xaal iyo kuwii soo noqonayo soo laabanaya ilaahay xaggiisa uma intaa ka bacdi idaa haddii adaaqahum uu dhadhansiiyo ilaahay minhu xaggiisa raxmatan raxmad iyo naxariis oo dulkii dhibkii laga qaado idaa fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah birabbihim rabbigood ayay yushrikuuna u shariig yeelayaan liyakfuruu inay kufriyaan bimaa aataynaahum wixii aanu siinay fatamattacuu raaxaysta waayahe fa sawfa dib danbaad taclamuuna u ogaan doontaan wixii idinku dhacee am anzalnaa mase waxaan dejinay calayhim korkooda sultaanan xujo fahwa taasoo yatakallamu hadlaysa bimaa ka hadlaysa ama u hadlaysa kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yushrikuuna kuwa markaa u shariig yeela waxyaabahay ilaahay ugu shariig yeelayaan sultaan aan soo dejinay oo ka hadlaysa oo dhahaysa way idiin bannaantahee sameeya taa miyaa jirta waa maya wa idaa adaqnaa haddii aan dhadhansiina annaasa dadka raxmatan raxmad iyo naxariis farixuu way farxayaan bihaa taabay ku farxayaan wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumaan oo bimaa sababteedaa qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodana idaahum waaba ayagoo yaqnaquuna quusanaya awalam yarow miyaysan arkaynin ana allaaha ilaahay yabasudu inuu yahay allaha fidiya alrisqa risqiga u fidiya liman yashaau ciddii uu doono wayaqadiru yahay ilaahay midka ciriiriya awalam yarow ana allaha yabsudu risqa liman yashaau wayaqdiru ilaahay inuu yahay miyaysan arkaynin mid ku ciriiriya risqiga qofkii uu doono inna fii daalika arrintaana la aayaatin aayaad baa ku jira liqowmin qoom bay ugu jiraan qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaya ee fa'aati sii dalqurbaa qaraabada midka u saaxiibkaa xaqahu xaqiisa sii waalmiskiina miskiinkana ha iloobin wabna asabiili iyo musaafirka wabna asabiili jidka cunugiisana sii xaqiisa daalika kaasaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa yuriiduuna doonaya wajha allaahi ilaahay wejigiisa wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu almuflixuuna waa kuwa liibaanay wamaa aataytum wixii aad bixisaanood siisaan oo min riban riba ah min riban oo siyaado xaggeeda ah
liyarbuwa say ugu badatay u ziyaado fii amwaali nnaasi dadka maalkooda dhexdeeda inuu idinku ziyaadaan idinkoo raba oo hadhow in wax badan laydiin keeno. amase ribada caadiga ka dhig, qofaad wax siisay markaasaa tiri hadhow waxaad ii keentaa ayadoo intaa ah oo intii ka badan, ee ribadii ilaahay diiday ay noqoto. wamaa aataytum min riban, wax allaala waxaad siisaan dad oo riba ah ziyaado ah, liyarbuwa say u badatay u ziyaada fii amwaali nnaasi dadka maalkooda dhexdooda inay idinkugu ziyaadaan oo hadhow wax badan iyo intii aad dhibteen ka badan laydiin keeno, falaa yarbuu badan maayo oo ziyaadi maayo cinda allaahi ilaahay agtiisa. waa yamxaqu allaahu riba, ilaahay ribada wuu tirtiraa, barakaduuna ka qaadaa, wayurbi sadaqaat, sadaqadana waa badiyaa oo waa barbaariyaa. wamaa aataytum wixiise aad siisaan oo min zakaatin zakooyin ah oo wax bixin ah, turiiduuna idinkoo la doonaya wajha allaahi ilaahay wejigiisa wixii aad siiseen, fa ulaa'ika kuwaasi humulmudacifuuna waa kuwa loo laalaabayo. allaahu ilaahay alladii ilaahi waaye khalaqakum idin abuuray, uma ka bacdi rasaqakum idin arsuqah, uma ka bacdi yumiitukum idin dilayaa ilaahay, waa allah idin dilaya, uma yuxyiikum haddana idin soo noolaynaya. ee hal min shurakaa'ikum shurakooyinkiina waxyaabaad ilaahay wax la wadaajinaysaan man ma ka mid yahay yafcalu samayn karaa min daalikum kiina aan soo tilmaannay min shayin shay, kiina ilaahay idin qabtay idin sameeyey shurakada aad idinka yeeshateen ood ilaahay ugu shariig yeesheen wax shay ka samayn karaa ma jira? waa maya. subxaanahu nasahnaana u sugnaatay ilaahay, wuu nasahan yahay. wa tacaalaa wuxuu ka sarreeya uu ka koreeyaa camaa yushrikuuna waxay ula shariig yeelayaan. dahara alfasaadu, fasaad baa soo daahiray, dhibaataa ka soo daahirtay filbari barrigii iyo dhulgariir iyo dhibaatooyin iyo nabaad inuu soo bixin waayey, walbaxri iyo baddii bimaa kasabat wixii ay kasbatay sababteeda aydi nnaasi dadka gacmahooda, liyudiiqahum suu u dhadhansiiye ilaahay buu saa ugu talagalay bacda aladii kii qayb ka mida camiluu ay camal qabteen, lacallahum waxay mudan yihiin marka dadkii yarjicuuna inay soo laabtaan oy ilaahay u soo noqdaan oo ay towba keenaan, ama shirkigii wixii ay galeen ee sababta ka dhigtay in dhibkaa ku dhaco inay markaa ka soo noqdaan. taasay markaa mudayiin. qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qabl kaana akharuhum mushrikiina. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaanahu watacaala aclam.